dabeecad ahaan macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City ma jecla ciyaartooyda balwada isticmaala xidigaha ku mashquula waxyaabaha kale sidaas darteeda wuxuu ka caroon doonaa falkan uu sameeyay Sergio Aguero. warbixintan waxaad kala socotaan qaraaxa YouTube. fadlan subscribe channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. like saar muuqaalkan lana wadaag oo u share garay asxaabtaada. weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City Sergio Aguero ayaa la arkay isagoo isticmaalaya shiisha ama badeeco. 30 sano jirkan ayaa waqtiga kooban ee uu qaadanayay waxa ku helinayay gabadha modelka ah ee la yiraahdo Lola Machinin oo iyana 18 sano jir ah. gabadhaas ayaana barteeda Instagram-ka ku soo post gareysay sawirada iyada iyo Sergio Aguero oo si wada jira u cabaya shiishada. ciyaaryahankan ayaa kamid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. qoyskiisa marka la fiiriyana waa ay kala tageen isaga iyo gabadha wiilka u dhashay ee Maradona gabadhiisa. sidaas darteeda waxa uu sameynayo uma wanaagsana mana ku qanci doono Pep Guardiola. isaga waa ciyaaryahan muhiim ah waliba mid kamid ah xidigaha ugu wanaagsan sportska ama kubadda cagta. fariin fiican uma dirin taageerayaashiisa waxaa sidaa lagu qoray webka amaba wargeyska The Sun. Aguero ayaa dhaliyay 206 gool. saddexleydii uu ka dhaliyay Huddersfield Town ayaana kaga dhignayd inuu record sameeyay. sidoo kale 1-1 ay wada galeen kooxda kubadda cagta Wolfsburg iyo kooxda kubadda cagta Manchester City. Aguero qayb ayuu ka ahaa kulankaas si fiican uma muuqan oo waa la bedelay. halyeyga England Alan Shearer ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sheegay inuu ka mid yahay ciyaartooyda ajaanibta ah ee ka ciyaarta horyaalka Premier League midka ugu fiican. Aguero ayaa diiday inuu xiriir kala dhaxeeyo gabadhan la yiraahdo Lola, balse wararku waxa ay sheegayaan in waqti qaas ay wada qaataan. ani uma socdo qof walba halkan ayaan joogaa balse muhiimadeedu ma ahan inaan muujiyo waxa igala dhaxeeyo qof walba ayuu yiri. Aguero hadda 30 sano jir ah ayaa laga yaabaa arintan inay fadeexad ku noqoto. waliba Pep Guardiola wuxuu qaadi doonaa tallaabo ah in ciyaaryahankan uu ka ganaaxo qaar kamid ah kulamadiisa ama xisaabtan gaar ah u la yeesho. Guardiola ma jecla in waqtiga ugu badan ciyaartooyda ay ku bixiyaan maalaayacni sababtoo ah xirada tababar ee kooxda kubadda cagta Man City xitaa looma ogola isgaarsiinta ama internetka si aysan ugu mashquulin ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City. fadlan subscribe channelkeena qaraaxa YouTube si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta waadna ku mahadsan tahay daawashada warbixintan.